bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo toddobaadkan aan mar kale diiradda ku saari doono arrimaha waxbarashada dalka Soomaaliya. Toddobaadkan barnaamijka waxaa ila jooga oo marti inoogu ah wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo marka koowaad aan kusoo booqnay xafiiskiisa kadibna wareysigan aan kula yeelanayno. waan kaaga mahad celinaynaa wasiir waqtigaaga iyo sidaad u casuumaadeena iyo aad nooga ogolaatay inaad waqtina siisid. waxaan rabnaa inaan su'aalaheena toos u galno. dhawaan waxaa la qabtay wasiir imtixaankii shahaadiga ee dowladda qaadi jirtay. sanadkan imtixaankaas sidee u qabsoomay marka koowaad arrintaas faahfaahin naga sii. aad u mahadsantahay Faisal adiga iyo tiimkaadaba. sanadkan imtixaanka alxamdulillah wuxuu noogu qabsoomay si fiican. qorshayaashii aan ugu talagalno idil sidii aan u qorsheynay ay u fuleen marka laga reebo waxyaabihii annaga awooddeena ka baxsanaa oo waxaan kuu sheegaa hakad yar uuna galay meelaha qaarkood taasoo ay ka mid tahay fatahaadii webiga Shabeelle oo ku yimid gobollada dalka qaarkood khaasatan beledweyne oo xilliga imtixaanka kusoo aaday oo ardaydeeda aan dib u dhignay laakiin ayadana alxamdulillah aan gadaal ma arkaysaa aan ka kaamilnay si fiican inoogu dhacday. sanadkan wuxuu ahaa sanadkii ardayda ugu badan weligeed intii dalkan uu qaranka ahaa imtixaan shahaadi oo heerka labaad u fariisatay imtixaanka ayay ahayd. waxaa haddana sanadkan cusbaa oo ayadana muhiim ay tahay in la sheego wuxuu ahaa sanadkii afraad oo imtixaanka aan qaadaynay marka laga soo bilaabo hadda sidii aan u bilownay imtixaankan shahaadiga ah oo dowladda ay gacanta kusoo celisay. waa sanadkii ugu horreeyay oo imtixaanka howlihiisoo idil aan annaga sameynay. wasaaradda ayaa ma arkaysaa imtixaanka dejintiisa, diyaarintiisa, qorsheyntiisa, daawacaadiisa, qaybintiisa, daabuleyntiisa, ilaalintiisa, xafidaadiisa wax walba iyo marka lagu daro xataa budgetka imtixaanka ku baxay ma arkaysaa dowladda oo ay wasaaradda waxbarashada qayb ka tahay ayaa waxaa soo iibsanay. marka taas waa guul weyn oo soo hoyatay. sanadkii ugu horreeyay maalan 4 sano ka hor 3 sano ka hor oo sanadkii ugu horreeyay la bilaabay waxaa imtixaanka dejintiisa waa nalaga ma arkaysaa caawiye. moderationkiisa iyo howlaha maraaxisha ku baxayso idil waa nalaga saaciday iyo lacagta ku baxayso idil xataa dalka dibadiisa aan kusoo daawacnay. marka sanadkan waxaa soo idil sanadba marka waxba ma arkaysaa dhacay. go-aanan gaarna sanadka marka annaga in haddii aanan imtixaanka hana karin aanan samayn karin ma soco karto ma arkaysaa dowladnimadeena. marka ilaahayna wuu nagu guuleeyey marka si fiican oo noogu dhacnay waa faraxsannahay. ardayda imtixaanka gashayna waxaan u rajaynayaa natiijo wacan inay helaan. waa tahay imtixaanka dowladda ay qaado dabcan su'aalo kala duwan ka dhashay wasiir oo dadka iska weydiiyaan ha ugu badnaato in dowladda laftigeeda imtixaan ay qaadayso macno weyn oo kala sameynaysa. marka imtixaankan oo dowladda qaado markaad u fiiriso wadamada kale hadda oo imtixaanka saas ay dowladda gacanta ugu hayso maxaa uu kala mid yahay maxaa uu uga duwan yahay maxaa lagu qiimeeyaa imtixaanka hadda dowladda qaado. imtixaanka horta waa imtixaan qaran qof walba oo ma arkaysaa imtixaankaas galayo horta inuu aaminsan yahay waxaan waa wax qaran uu galayo. labo imtixaanka wuxuu haddana keenayaa in qofkii uu helo shahaado ama marakac in qofkani uu waxa uu sheeganayo uu soo qaatay. dunidana waxa aan kala mid nahay waxaan ka mid nahay qayb dunida ka mid ah waxa weeyaan waxaa lagu heshiiyey dunida in ma arkaysaa marka la yiraahdo waxbarashada maraaxil ayaa loo yeelay. dugsiga hoose waxaa loogu talagalay marxalad, dugsiga dhexe waxaa loogu talagalay marxalad, dugsiga sare waxaa loogu talagalay marxalad. mid walbana waxay ka turjumaysaa ma arkaysaa ardaydaas waxaas baranayso in waxaan ay sheegayaan ay tahay wax ma arkaysaa muhiim ah oo xilligaas la rabo ardayda inay qaataan.
dunidu way ka samantaha marka anaga taas qayb ayaa ma arkaysa aan ku leenahay marka waxa aan annagana aan cadaynayno waxaa weeyaan ardaydeena in ma arkaysa intaasoo sano ay wax soo barteen ay soo barteen 1 2 3 oo ay ku soo barteen conditionkaas 1 2 3 oo waxaa soo baray macallin asna ma arkaysa la ogyahay oo laga soo qiimeeyay 1 2 3 taasa ma arkaysa aan dunida ay ka wada siman tahay oo 12 sano arday markay soo qaataan ay galayaan imtixaan oo la qiimeynayo aqoontiisa taasna xaq oo ardayda ay u leeyihiin waaye arday kasta anaga dastuurkeena taas uu sheegay arday kasta oo ma arkaysa imtixaan shahaadi dhamaysta wuxuu xaq u leeyahay waxbarashadiisa in ma arkaysa la qiimeeyo ma arkaysa la kaydiya natiijadana loo sheegaa asaga iyo waalidkiisa marka number 1 waa xuquuq dastuuri ah number 2 waxa waaye waa requirement ama waa qasab oo wax dunida aan ka wada midaysanahay waa dunida dhan isku raacday ma arkaysa intaas ay ahaato qaab wax loo barto marka taas ayaa marka anagana aan practice-keedii aan sameynayna ayadaan ma arkaysa waa tahay sidaa sheegtay numberka ka qaybgala ardayda ama isdiiwaan gelisa haddii noqotaba waa number aada u badan ku dhawaad 30,000 ama tiro intaas la eg marka aad u fiirisid imtixaanka sidii loogu talagalay ardaydaas oo dabcan meelo kala duwan oo Soomaaliya ka imaanay ma uga qayb galeen wasaaradda ma xaqiijisay tiradii diiwaan gelisay dhammaantood imtixaanka inay ka qayb galeen waan sameeyay horto tiro walbo isdiiwaan gelisay wax un baa dhacayo khalad dadka qaar markii ay imtixaanka isdiiwaan geliyaan kadib isbedelayo ma arkaysa qorshahoodii qaar dhoofayo qaar ma arkaysa rawaxayo oo ma arkaysa dunida ka tagayo ama dhimanayo qaar ma arkaysa si kale qorshahoodii u bedelayo marka way jirtaa taas in ma arkaysa mar walba qorshihii la sameeyay ay wax iska bedelaan laakiin wax badan iska ma bedelin ardayda isdiiwaan gelisay marka la fiiriyo percentage wax yar ayaa ma arkaysa aan soo xaadirin marka taasina waa ayadana waa wax ma arkaysa dunida ka dhaco qorshaheena marka sidii loogu talagalay aan u qorsheyn ayuu dhacay dhinaca kale beledweyn dhawaana imtixaankii dib loo qaaday maadaama imtixaankaas dib loo dhigay markii fatahaadaha ay ka dhaceen oo xilligii imtixaanka dowladda la qaaday uu ku soo aaday hadda beledweyn iyadana saas oo kale ma la hubiyay imtixaankii sidii loogu talagalay inuu qabso aad iyo aad hadda annaga tiimka ma arkaysa wasaaradda ka shaqeeyo waxay ku noqdeen khabiiro howlaha imtixaanka marka beledweynena waan tegay markii dambe aniga oo haddana imtixaankii loo soo daahfurayay waan tagay si aada u fiican oo ma arkaysa uga dhacay kii wuxuu la mid ahaa dalka asagana ma arkaysa hadda wuxuu ku jiraa maraaxiishii kala duwaneed imtixaanka kaloo dalka uu ku jiray ayaan ka daba keenay marka si fiican ay usoo dhacday howlihiisa asagana waa tahay imtixaanka inkastoo howlihiisa weli dhammaanin laakiin qaybtii ugu xooganeed la qabtay waxa caqabadaha oo imtixaanka intuu socday ilaa hadda lagala kulmay ama imtixaanka uu la kulmay ma jireen caqabada waaweyn aan isdhihi karno ma arkaysa dhibaatay nagu keeneen ma jirto laakiin mar walba waad ogtahay dalka aad joogtid iyo qaabka ma arkaysa waxaan ay yihiin waxyaaba yarar way soo baxayaan waxaasna waa waxay ahayd wax aan la dhiilgaraynayn mar walba oo aan howlaheeda hagaajinayn marka caqabada waaweyn ma jiro waa tahay laftigooda waxaa qayb ka ah xarumaha dowlad goboleedyada qaarkood imtixaanka waa lagu qaaday iyagu laftigooda doorkooda sidee u muuqday sidee uga qabsoomay imtixaanka si fiican aan ma arkaysa aan uga wada shaqeynay annaga iyo dowlad goboleedyada dalka ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ahba waxaanay qorshe waan isla dejinay waan ka wada shaqeynaynay imtixaanka daabuleyntiisa iyo ilaalintiisa iyo geysmada meelahaasoo idil waxay ahaaday mas-uuliyad ma arkaysa naga wada dhexayso mas-uuliyad wadareed ayay ahayd marka cid walba qayb ay ku leedahay marka qaybtoodana si fiican ugu soo dhalaaleen annagana teena alxamdulilah si fiican aan u qabanay waayahay sanadka imtixaanka in dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada dhammaantiis maamushay gacanta ku hayso howlihiisa ay qabanayso ayaa jirta ka mid tahay in xataa natiijada sanadkan lagu daabaco dalka maxaa isbedelay oo markii hore caqabadeeda ka haysteen oo hadda wasaaradda heshay oo u suurageliyey inay daabici karto oo dhammaan imtixaanka howlihiisa ay la wareegto horta waqtiga wuxuu ka mid yahay daawada marka awood waan helnay hadda ko waddanka wuu isbedelay
wacyiga dadka iyo siyaasadii ma arkaysa dawladda oo si wacyiga dadka uu isbedelay siyaasadii dawladdana way soo xoogeysatay dadku way aamineen hadda dawladda in ma arkaysa shahaadadeeda ay muhiim tahay shaqo waan qabanay annaga oo ma arkaysa dunidana cilaaqaad fiican aan u sameynay waan sheegnay in ma arkaysa shahaadadeena loo baahan yahay inay muhiim tahay marka daladii waxbarashada oo ma arkaysa ayagana hadda dareemayo in ay heleen dawlad ma arkaysa ay wada shaqeynayaan oo ma arkaysa qawi sii noqonaysa maalinta ka dambeysa marka isbedelo weyn oo lasii kobcayo maalinta kasii dambeyso sii biirayo ayaa meesha ka soo baxay marka taas ka faa'iido waxaan u aragnaa annaga aada u fiican waa tahay wasiir kalsooni intee la eg baa ku qabtaa in wax isdabamarin ku aadan imtixaanka inaysan dhicin oo wasaaradda sidee ugu afeefatay arrintaas ugu diyaar garowday marka wax weyn oo aan la taahno oo dhibaato nagu keeno oo urka taalo leh ma jirto laakiin waxyaaba yaryar saan sheegaya inkastoo aanan ogeyn hadda laakiin inay dhici karaan mar walba khatarahaas waa sii qorsheynaa risks way jiraan oo inay ma arkaysa wax dhici karaan qaabkaan uga hortegi lahaynayna ayadana waan sii qorshaysanaa laakiin wax weyn oo ma arkaysa aan naga hor istaago imtixaanka inaan qabanin ma arkin alxamdulilah laakiin waxyaabaha yaryarka way iska dhici karaan taasna wax ma arkaysa meel aan kasoo qaadayna maaha waxaan kasii qaadanaynaa un khibrad iyo waxbaan kasii baranaynaa weli daawadayaal dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka kulanka toddobaadka oo toddobaadkan marti noogu yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane cabdiraxmaan daahir cusmaan oo wasaaraddiisa aan kusoo booqanay wareysigana aan kula yeelanayno raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka baad nagala socotaan wasiir dhinaca manhajka haddii aan fiirino manhajkii qaybihiisii koowaad ama waxbarashada asaasiga ahayd manhajka u ahayd wasaaraddu way diyaarisay daahfurkii in la ogolaado waa la daahfuray waxyaaba badanaa kasoo laabtay oo hadda doodahooda taagan yihiin dalka waxaa la socotaa in hadda dowladda hay-adaheeda iyo dalka dhismihiisa hadda ay xowli ku socdaan waxaa ka mid ah arinta waxbarashada inay qeyb ka noqoto laftigeeda arrimaha qaran ee wadaniga sida arinta calanka dastuurka arrimaha doorashooyinka sidee manhajka arintaas ma laga fakeray in manhajka dowladda ay soo saareyso la waafajiyo arrimahaas maadaama muhiim u tahay jiilasha soo koraya iyo kan hadda joogaba manhajka horta waa manhaj qaran hay-adaha dowladduna way isla socdaan ma aha mid si gaar ah waxeed u samaysanayso dowladdu waxay leedahay wasaarado isku xiran waxay leedahay xafiis prime minister oo waxaan coordinate gareey ama ma arkaysaa xiriiriyo marka siyaasadda dowladdana waa mid midaysan waxaan leenahay aragti ma arkaysa dowladda ay ku socoto oo hoggaankeeda iyo kaxaynteeda ay madaxda dalka ugu waaweyn ay ma arkaysaa jihaynayaan annagana khasab ay nagu tahay ma arkaysaa wasaaradaheena mid walba aan ku keenno meeshaas si dalka uu iskula socdo marka wasaaradda waxbarashada qayb ayay ka tahay waa qayb weliba muhiim ah marka la yidhahdo xagga arrimaha bulshada muhiimay u tahay arrinta manhajka markay noqoto waa wax muhiim ah waa manhaj qaran oo waxbarashada dalka iyo ma arkaysa kobaca dhaqaalaha dalkan mustaqbalka wax ku soo kordhin doono waa wax aada looga fikiray dad Soomaali ah oo khubaro ah ayaa muddo dheer ka soo shaqeynayay waxaan ka fikirnay ujeedooyinka fogfog oo ma arkaysa uu leeyahay dalka laga leeyahay siyaasadda waxbarashada dalka iyo caruurta iyo tayada dadka aan rabno dhallinyaradeena mustaqbalka inaan soo saarno qaabkii ma arkaysa loogu qalameyn lahaa aqoonta aan ka rabno dalkana muhiimka u ah manhaj laga fikira waaye arrintaas uu soo saaro wadciga dalka uu ku sugan yahay maanta oo ama uu ku sugnaa muddadii lasoo dhaafay oo ah isla midka conflictiga ama colaadaha iyo waxaas xumbaarsan wadciga maanta dalka uu ku sugan yahay oo keenay kala qodqodnaanta wadciga maanta uu dalka ku sugan yahay oo ah ma arkaysa ardaydii inay xag jir dhallinyaradii ay noqonayaan waxaasoo idil mid laga fikiray oo la rabay in laga daaweeyo waayo wadciga dalka uu ku sugan yahay guud ahaan iyo kan caalamka annaga haddii aan nahay qoomiyadda Soomaaliyeed oo degan geeska Afrika sida aan rabno dalalka dunida inaan ula dhaqano caruurteena iyo dhallinyaradeena iyo ma arkaysa muwaadiniinteena sidii u ahaan lahaayeen dad ma arkaysa
representative ah oo maxaan kuu sheegaa ka qayb qaata horumarka dunida keliya dalkooda aan ahayn oo sumcad fiican dadkooda iyo sawir fiican bixiya oo la socdo isbedelada dunida iyo xadaaradaha iyo teknolojiyada mar walba imaanayso sidii uga qayb qaadan lahaayeen mid laga fekero waayo waa mid aan ka fekernay dalalka regionka ama dariskeen ah ayagana sidii aan uga qayb qaadan lahayn waxyaabaha aan wadaagin waa mid aan ka fekernay dalalka aan isku taariikhda nahay aan isku bahda nahay isku isirka nahay isku dhiigga nahay oo naga dhexayso diinta iyo iimaanka uu naga dhexeeyo ayagana qaabkii aan ula dhaqmay marka manhaj waxaa waaye shaamil ah oo si fiican intaan uga fekernay aan rabno marka ugu dambaysa inaan soo saarno wiil ama gabar Soomaali ah oo aan dadka kale ka diiqoonin aan ka qalin aan ka khajilin oo aragtidiisa soo dhigto doodiisa si fiican intii meel usoo dhigto dadka kale ka dhaadhiciyo oo maskax furan oo diintiisa iyo iimaankiisa isagoo haasto dadka kale inta waxay haastaan ay rumaysan yihiinna soo dhaweeyo oo ma arkaysa u furan maskaxdiisa iyo aragtidiisa iyo shakhsiyadiisa ay u furan tahay dunida iyo inuu ma arkaysa competition uu sameeyo uu isa soo saaro oo ma arkaysa xag walba ka dhisan xagga aqoonta xagga akhlaaqda iyo waxa uu aaminsan yahay oo iimaanka ah iyo dad la dhaqanka ma arkaysa qaabka uu ula samaynayo xiriirka dadyooga kala duwan iyo dadkiisa ay ku jiraan marka waxa waaye manhaj aan qaabkaas uga fikirnay haddii ma arkaysa wax alla wixii aan u baahan nahay oo resource aan helno ilaahayna uu nala garab gala annagana juhdigeena aan kusii biirino haddii ilaah yidhaahdo isbedel inuu imaanayo 20 sano kadib dadkii waxaan soo dhex maray ay noqonayaan dad muwaadiniin oo fiican oo si fiican u fekero dhaqaalana waddanka iyo horumar ku keenayo taasaan aaminsanahay waa tahay hadda manhajkeena marka aad fiiraysa qaab dhismeedkiisa sidee yahay sidee qaab dhismeedkiisa wasaaradda u diyaarisay mase la ogolaado hadda ma la ansixiyo ma la proof gareeyo cid laga baryaayo in horto la ogolaado ma lahan taas qasabay nagu tahay dalka mas-uuliyadda annaga naga saaran waxaa waaye in waxbarashada dalka aan majraha u qabano oo wixii dalkan ku nool dan u ah oo guud ahaan dadku wada jira iyadoo la wada tashanayo oo laga wada tashanayo xag walba laga tashanayo inaan anagana aan ku hogaamino taas marka waa wax ma arkaysa aan ka soo fikirnay in manhajku uu yahay manhaj ma arkaysa fiican oo faa'iido leh waa waxaan hadda aan ka soo hadlayo waxaa soo idin wuu leeyahay manhaj waa laga soo wada tashaday dabcan wuxuu ka bilaabanayaa siyaasadda waxbarasho aan dejinay oo dalkoo idin la rabo in laga dabaqo waxaa ka qayb galay dad Soomaaliyeed oo kala duwan geographically oo gobollo kala duwan dalka ka yimid oo bulshada ka kala tirsan qaybaheeda kala duwan marka waxaan dejinay aragtiyo ma arkaysa muhiim ah oo aan rabno inaan gaarno oo dadkaas ka soo dhax baxday markii aan siyaasadda sameynay markaas waxaan sameynay siyaasaddaas waxaan kasoo dhirnay framework ama manhaj curriculum framework la yiraahdaa oo aan sii yareynay curriculum framework haddana waa inaan kasii sameynaa contents ama syllabus ama muqarrar wax la yiraahdo oo markaas sii qeexayo sida aan rabno exactly maadooyinka aan rabno inaan barno inta yihiin saacadaha aan rabno ardayda wax u dhigno inta yihiin macallimiinta la rabo ardayda in wax u dhigaan ayagana sifooyinkooda waxaada arrin kale waaye inta maalmood oo aan rabno iyo inta saacadood oo aan rabno ardaydaas inaan waxaan aan gelino intaas kadib ayaa haddana aan qornay markaa buugaag waxbarasho oo ma arkaysa ayagana laga fikiray sawirada lagu qoraayo iyo sida ma arkaysa su'aalaha loo weydiinayo iyo sida u qoran yihiin iyo subject-yaasha kala duwan iyo topic-yada waxaa soo idin marka waa manhaj shaamil ah oo kasoo bilaabanayo waxbarashadii siyaasadeedii oo ku dhammaanayo buugaagtii la qoraayo marka waxaan aaminsanahay in ma arkaysa faa'iido waaweyn waayahay wasiir dhinaca markaan fiirino deeqaha waxbarasho oo wasaaradda maamusho wasaaradda kusoo dhacaan gacanta ku hayso iyadu maarayso deeqahaas inta badan marka aad fiirisid aad ay u hadal hayaan ardayda Soomaaliyeed deeqahaas sidee loo maareeyaa hadda guud ahaan Soomaaliya maadaama hadda wadanka federaal ah laftigiisa dowlad goboleedyada ay qaybo ku leeyihiin
wasaaradda marka mas-uuliyaddaas iyadoo qaadanaysa sidee hadda deeqaha soo gala ama deeqaha dalka helo sidee u maareysaa wasaaradda waxbarashada su-aal aada u fiican waaye taasna waxaan jeclahay dadka soomaalida inay dhageystaan deeqaha waxbarasho horta waxaan ka helnaa dalal aan saaxiibo naho badan waa 7 dal hadda way sii badanayeen maalinba waxba ma arkaysaa kusoo biiraayo qaarkood waxaa weeyaan annaga mas-uul ka ahaa maarayno laga bilaabo ardaydii iyo qaabka imtixaanka looga qaadayay iyo selectionkii waxaasoo idin ilaa inta laga diraayo annagaa sameyno qaarkoodna waxaa waaye ayaga processko idin wato marka waxay noo soo diraan markii wixii ay qaataan ardaydii numberkii qaataan iyo magacyadoodii annagana waan diiwaan gashanaa waa arrin ayadana aada u fiican marka qaabka aan u qaybino kuwa annaga aan maarayno waxaa waaye waxaan ku xirnaa boqoley tirada ardayda qaacidaan dejinay oo ah tirada ardayda ka imaanayso gobol walba in ma arkaysa ay helaan deeq waxbarasho u qalanta marka taasina waxaan ugu talagalnay dalkoo idin si ma arkaysa ay wada faa'iidaystaan tusaale ahaan haddii ma arkaysa dowlad goboleedka ay ka soo baxday 10,000 oo arday dowlad goboleedka koonfur galbeedna ay ka soo baxday 5,000 oo arday oo tirada guud ahaan gashay imtixaankana ay tahay 100,000 oo arday marka dowlad goboleedka Puntland tirada ma arkaysa aan helnay oo deeqada waxbarashada ay tahay 100 marka 10% helaysa koonfur galbeedna waxay helaysaa 5%. marka saas oo kale tusaale ahaan ka wadan marka taasaan ku qaybinaa talabaad qaacidada kale oo degan waxaa waaye in ardayda ugu sareysa imtixaanka ayadana ay helaan taasina waan isku daynaa inaan ma arkaysa aan ku riixno aan ma arkaysa ku push garayno cid kasta oo ma arkaysa waxaan shaqo ku leh oo door ku cayaaraysa in ay raacaan qaacidadaas anagana waan isku daynaa inaan control marka siyaabahaasa lagu qaybiyaa deeqaha waxbarasho si ay qof walba oo dadaalay oo ma arkaysa juhdi geliyey uu cadaaladda u helo dadaalkiisa u helo darteed iyo in dalkoo idin ma arkaysa ayagana ay ka wada faa'iidaystaan labadaas asal waa tahay dowlad goboleedyada markaa see uga wada shaqeysaan minxooyinkaas door noocee ah ku leeyihiin iyaga ayaga mas-uulka ah doorashada ardayda ay soo dooranayaan iyo processka maraaxiisha ay soo marayso idin annaga markii ayna soo gaarto oo ma arkaysa aan qaacidooyinkii dabaqno aan kala qaybino waan u dirnaa ayaga marka ayaga numberkii ay noo soo diraayeen oo ardaydooda gobolladooda ayagaa noo soo diro marka waan ka hubinaa keliya in qaacidadii la marsiiyey markaasna waan horan usii gudbinaa anaga waa tahay wasiir wasaaradda waxbarashada siyaasadda waxbarashada bay dejisay oo leedahay oo dalkan leeyahay soomaaliya dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid ah nabadgelyada oo weli aan adkaan ama meeshii loogu talagalay aan jirin nabadgelyadaas dhexdeeda waxaa kusii jira xagjirnimo argagixiso waxyaaba noocaas marka dhinaca waxbarashada la fiiriyo door noocee ah ee siyaasadda waxbarashada ee wasaaradda dejisay ka qaadan karta arrimaha nabadgelyada iyo arrimahaas ama afkaartaas in laga hortago ee la baabi'iyo oo lagu bedelo mid aad idinka wadaan siyaasaddiina xagee ugu jirtaa sax waay dowladda horta waxay leedahay ahmiyaad waaweyn oo 1 2 3 4 oo 10 ama 9 tan koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad intaba waxaa waaye waxay ka hadlayaan nabadgelyo xumadana waxaa keenaya dabcan waxaa waaye waxyaaba badan oo kale la sii xiriira cadaalad darrada ay ka mid tahay masuq maasuq uu ka mid yahay waxbarashada waxaasoo idil mas-uuliyad ay ku leedahay ya waxbarashada waxaa weeyaan ma aha sida wasaaradaha qaarkood oo wax gaar ah specific ay tahay mandate-kooda oo kaxeynayo cadaaladda marka la yidhaahdo waxbarashada waxay ku leedahay door nabadgelyada marka la yidhahdo waxay ku leedahay door oo mucayan oo weli specific ah oo hadda daarto inaan kuusii sheego oo manaaxijta iyo siyaasadda iyo waxaas meel soo galaayo iyo buugaagta wax laga baraayo oo laga soo dhalinayo waxaasoo idin iyo qaabka loo qoraayo
iyo sawirada ma arkaysa buwaagta lagu soo daabacayo illustrationka oo caruurtaas loo dhigayo macallimiinta iyo ma arkaysa sida ay wax u barayaan iyo methodka wax loo barayo waxaasoo idil waxay gelaysaa keliya ma aha in ardaygii aan soo saarno arday inuu cilmi leeyahay laakiin inuu akhlaaq leeyahay inuu degan yahay inuu saaxiib leeyahay dabeecadda iyo environmentka waxaasoo idil taas marka waa waxa ugu weyn anaga roolka ugu weyn oo waxaan ku leenahay nabadgelyada dalka inaan xasilino ma aha kii ma arkaysaa dusha laga keenayo oo militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo dadka ay qastaan laakiin waxaan rabnaa inaan soo saarno dad degan oo nabadgelyada ay ka timaado xagga hoos oo dad ma arkaysaa haadi ah inaan soo saarno marka rool xoogan ayaan ku leenahay markay noqoto dalkan nabadgelya inkastoo cid walba oo dalkan ku nool mas-uuliyad ay ka saaran tahay laakiin haddana annaga waxaa weeyaan waa dadkii jiilashii la rabay dalkan inay sii kaxeeyaan dadkii soo saarayaan nahay laba wasaaradda waxbarashada waxay wasaaradda labaad ugu ballaaran ee dalkan uu leeyahay marka laga reebo wasaaradda difaaca waagii hore marka taas muhiimadeedana marka lagu daro macallimiinteeda dabcan iyo shaqaalaheeda taasi marka waxay keenaysaa marka haddii ardayda lagu darana waxaa waaye waxaan nahayba ardayda dalkan waxaa ugu badan dhalinyara ugu badan 30 wixii ka hooseeya laga yaabee marka la yiraahdo 20 wixii ka hooseeya ama 25 wixii ka hooseeyo marka la yiraahdo inay noqonayaan boqolkiiba 50 inay noqonayaan statistics lama sameeyo laakiin qiyaastii taas macnaheedu waxa 25 wixii ka hooseeya oo idilna waa dadka la yiraahdo school age ama jaamacad ha dhigteen ama waxbarasho kale ha dhigteen marka waxaa soo idil waxaa weeyaan waa in ma arkaysa ay door ka qaataan wasaaradda waxbarashada ayaa ma arkaysa mas'uulka waalidiintooda iyo ma arkaysa markaan kusii darnaana waa ma arkaysa way kasii badantaa marka mas-uuliyad xoog leh ayaana saaran oo dejinta dalkan iyo jihayntiisa iyo nabadgelyada iyo sidii looga qayb qaadan lahaa horumarkana dalkana oo weliba xagga fiican oo kobaca dhaqaalaha iyo waxaas keenaya iyo thaqaafadda iyo baxnimada ayadana waxbaa naga saaran marka manhajkeena waxaas way ku qeexan yihiin marka arrimaha hadda aad sharaxday wasiir si laftigooda kuwa loo gaaro maxaa loo baahan yahay in la helo si loo waxa ugu weyn horta loo baahan yahay in la helo waxaa waaye waa resources ya meeshan haddii walaalaheen carabta waxay yidhahdaan alfulus kul xaaja aniga laakiin horta saas ma dhahayo alfulus kul xaaja ma aha laakiin waxa anaga naga hortaagan mar walba caqabadaha lagu keeno waxaa weeyaan waa dhaqaale darro haddii aad dhaqaale haysato waxaasoo idil waad ma arkaysaa at least saad ugu tala gashay inta badan way kaaga dhacayaan inaad ma arkaysaa aad keensato dadka ugu cilmi badan dunida oo aad ka bixinaysid kharashkooda si ay horumar xagga waxbarashada waxaas ay kaaga sameeyaan oo aan keeni kari lahayn waxaan keeni kari lahayn qalabka ugu wanaagsan oo dadka ay wax ku bartaan dunida oo ma arkaysaa ayagana si aan usoo saarno dad tayadooda aada u fiican tahay waxaan keeni kari lahayn iskuullo ma arkaysaa ayagana standardkooda iyo musawayaadkooda uu yahay caalami oo ma arkaysaa ardayda inay wax ku barnaan oo qalab wanaagsan oo laababkii wixii loogu talagalay leh waxaan keeni kari lahaynay macallimiinta meelihii lagu tababari lahaa oo lagu soo saari lahaa waxaan keeni kari lahayn macallimiinta adduunka ugu markaad fiirisid waxaasi ma ka dhamaato resource dalalka waxbarashadooda ay aadka u sarreysana heerka fiican ka gaaray waxay ma arkaysaa si xoog la u maalgeliyaan waxbarashada marka dalalka qaarkood boqolkiiba 30 boqolkiiba 35 boqolkiiba 40 ayay gaarsiinayaan waxbarashada heerarkeeda kala duwan inay ku maalgeliyaan marka taas waa caqabada ugu weyn oo anagana haysato marka waxyaabahan kaleento idil waa furuuc markaad haysato resource-kii waad keenaysaa marka caqabadahaas weyn haystaan waa tahay weli arrintaas qayb ka mid anagoo ku wareegeynaa dabcan arrinta nabadgelyada laftigeeda waxaa jirto qolyahan hadda nabadda diidan dhalinyaro badan laftigooda inay fikirkaas dib inay uga soo laabtaan isku dayeen markay xamili waayeen dhibaatooyinka ay ku jiraan qaarkood dowladda gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada dhinaca waxbarashada door noocee ku leedahay wax ma la baraa sidee loo baraa fikirkaas sidee looga baabi'iyaa dhalinyarada kasoo laabato nabaddiidka
si fiican aan arkaysaa waxaas aan iskala shaqeynaa meelaha dadkan lagu hagaajinayo noloshooda. Si fiican aan iskala shaqeynaa wasaaradaha kale oo shaqadooda tooska ay tahay howlahan. annaga xilka naga saaran dhalinyarada Soomaalidu iskuul age-ka gaarto idil waxaa waaye in aan keeno manhaj waxbarasho oo wanaagsan oo tayo leh oo soo saaro qof caruur ah oo wanaagsan oo aan halis naftiisa iyo khatar gelinaynin cid kalena aan khatar u gelinaynin. taas way naga maqnayd ilaa iyo muddo. waxaan aaminsanahay in ku dhawaad 30 sano oo lasoo dhaafay khatarta dalkan ka dhacaysa qaarkeed waxbarashadii oo la khalday oo lama marin habaabiyey oo manaahij iyo buugaag kala duwan dalka ay soo galeen oo dadkii aragtidoodii la kala duway oo qulubtoodii la kala duway oo dhaqankoodii la kala duway ay u tahay asal. taasaan aaminsanahay. waxaan aaminsanahay in buugaagta lagu dhigayay dalka oo meelo kala duwan ka yimid oo siyaasado kala duwan ma arkaysaa fiidgaraynayay ama siyaasado kala duwan naaxinayay macallimiinta dhigaysay buugaagtaasna aan loo soo tababarin siyaasadahaas ay naaxinayeen oo tayadii la rabay macallimana aysan lahayn inay keentay in ma arkaysaa ay waxbarashadii noqotay mid aan faa'iido keenin oo si fiican ardaydii ma arkaysaa maskaxdoodii u bedelmi karta. marka juhdi xoog lahaan gelinay manhajkan hadda aan soo saarnay buugaagtan waxaan ugu talagalnay in Soomaalida aan kala qoqobka la geliyay aan ka soo saarno oo aan isku soo dhaweyno in waxaan kuu sheegaa ay noqdaan kuwa ma arkaysaa ilbax ah, kuwa ma arkaysaa dadka kale la noolaan karo, kuwa aan ayaga khatar isku noqonaynin nafsadooda, dadka kale aan khatar ku keenaynin. saas darteed ayaa maxaa waaye maxaan kuu sheegaa himilada ugu weyn oo waxbarashada aan leenahay visionka ay tahay in la helo nidaam waxbarasho oo keena wadajir bulsho. waayo maanta Soomaalida waxay u baahan tahay in wadajir bulsho la helo kaasoo haddana ku keeno nabadgelyo, cadaalad, wadaniyad iyo horumar waara. shantaas waxyaabood ayaa ma arkaysaa asal aan uga dhignay aragtida aadka u fog ee waxbarashada dalka aan ka leenahay. shanta waxyaaboodna waa 5 waxyaabood oo ka turjumaysa xaaladda dalka maanta dadkeena ay ku sugan yihiin. cadaalad darro waa waxa ma arkaysaa asalku ah dhibkan ma arkaysaa uu qarxay. nabadgelyo xumo ayadana ma arkaysaa waa waxa maanta ka jiro oo dalkii aan loo kala socon karin dhexdiisa uu kala qoqoban yahay. fakri oo asna waxaasoo ay kasii ratibmeen oo la rabo in horumar la keeno oo laakiin annaga xaggeena naga yimid oo waara waa in la helaa. wadaniyadda iyo wadajir bulshana waa laba waxyaabood isku xiran oo ma arkaysaa bulshooyinkiina hadda waxay noqdeen bulshooyin kala duwan oo kala aragti ah oo ismucaarado oo iska soo horjeedo. dadkii Soomaalida qoomiyadda ahayd oo midka ahayd ayaa hadda waxay noqdeen time kadib 30 sano ku dhawaad kadib dad kala duwan oo aan isku damqanin oo shaqo aan isku lahayn oo aan isku nixin oo wadaniyadii ma arkaysaa ka dhaxaysay wixii isku hayay qoomiyaddan meesha ay ka baxeen. marka nidaamkan waxbarasho waxaasaan rabnaa inaan ka daaweeyo. haddaad fiiriso marka aragtida fog ah waxbarashada aan ka leenahay ma aha sida dalalka caadiga ah oo ma arkaysaa waxbarashada heerka fog ka gaaray visionkooda iyo keena uu kala duwan yahay. keena wax specific ah ayuu daaweynaya. markaas kadib ma arkaysaa iyadana aan ka fikirayna waxyaabahan kaleento oo teknolojiyada iyo horumarka iyo aqoontii iyo akhlaaqdii iyo sidii ma arkaysaa aan ku geeli lahayn. taasna way garab socotaa. waa mahadsantahay wasiir faahfaahintaada. markaa fiirisid heerarka lagu qiimeeyo waxbarashada hadda xilligan la joogo Soomaaliya waxbarashadeeda maxaa lagu qiimeeyaa xagee heerarka waxbarashada marka la qiimeynayo uga jirtaa Soomaaliya? ma ogin qiimeyn sax ah laakiin Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu liito marka halbeegyada waxbarashada lagu cabirayo oo idil. waxbarashada
waxay ka mid tahay waxyaabaha kale oo ma arkaysa adeega bulshada oo caafimaadka iyo shaqada iyo maxaan kuu sheegaa faqriga iyo waxyaabaha la xiriira iyo waxaasoo idilay ma arkaysa ay ku xiran tahay taasna dalkeenna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu hooseeya faqriga dalkan wuu gaanguray kaabayaasha dhaqaalaha ama infrastructure-kii ma jiro iskuuladii wan wanaagsanaa oo ma arkaysa loogu talagalay in si fiican loo dhisa ma jiraan iyo caafimaadkii iyo waxaasoo idil macallimiintii tayada lahayd iyo meelihii macallimiinta soo saaraysay ma lahan marka waxbarashadii iyo qaabkii tayadeeda loo control lahayd iyo waxaasoo idil meesha way ka maqan yihiin marka waxyaabahaasoo idil anagoo og ma dhihi karno waxaa imaanaya miracle oo soomaalida waxbarashadeeda haddana markii halkaasay joogtaa ma dhihi karno ya marka waxaan aaminsannahay waxbarashada dalka tayadeeda aada inay u liidato ay ku jirto dunida kuwa ugu liito waxaa la yidhaahdaa lagu tilmaamaa boqolkiiba 20 inay average ama celcelis ay tahay dadka ma arkaysa iskuulka aadaya aada u yar tahay marka dalkoo idil marka la yidhaahdo 22 ayaa iskuul ka aado maxaan kuu sheegaa fursad heshay waa wax aada u yar marka tayada marka la yidhahdana haddana way sii liidataa ma garatay taas waxaa waay horta waa helitaanka waxbarashada ama baahitaankeedii tayada marka lahaa aada u sii liidataa marka waxaasoo idil annaga waxayna tusaysaa in walwal xoog leh ay nagu abuureysaa oo la rabo inaan aad aan u shaqeyno in ma arkaysa aan ka fekerno habeen iyo maalin aan juhdi xoog la gelino dalkan caruurtiisa iyo jiilalkiisa sidii aan u bedeli lahaynay mustaqbalkooda aan ugu dhigi lahaynay kuwo ma arkaysa ayagana wax isku taro oo wax fahansan oo maxaan kuu sheegaa dalkana horumar u keeno marka haddii xataa ay nala tahay anagoo meel kale oo aan ku cabirayno ma naqaan laakiin hadday nala tahay xilliyada qaarkood aan soo marnay oo aada ay u liidatay oo maanta ay ka wanaagsan tahay intaas keliya ma nagu filno inaan ma arkaysa aan ku niraahno waa ma arkaysa waa fiican tahay marka waa inaan xoog aan juhdi u gelino dalalka aan dariska la nahay simple markaad kasoo qaado hadda dalka oo aan dariska dhaho koonfurta naga xigo walaalaheen Kenya imtixaanka inkastoo naga populationkooda uu naga badan yahay imtixaanka ay qaadaan budgetka ay ugu talagalaan ya ayaa wuxuu la mid yahay dalkeenna budgetka waxbarashada aan ugu talagalnay sanadkoo idin ya ayuu wuxuu ka wan yahay 40 jeer ya taas macnaheeda waxaa waaye kuwii naljaalka ahaa oo isku meesha aan deganayn isku buqcada aan deganayn oo isku wadciga aan dhahayn afrikaanka aan isku ahayn oo xorriyadda hortood aan qaadanay ya ayaa ma arkaysaa saas nooga horeeya taas macnaheeda marka waxaa waaye annaga mana tusaysa in aan qanacsannahay oo aan kalsooni haysano oo nafsadeena aan dhihi karno aan faani karno maya waxay la tahay waa intaas ayna gelisaa dadkeennana waa inay dhiig ay isku yeelaan taas ay gelisaa inaan kor aan usoo kicino taas waa annaga aan rabnaa inaan u shaqeyno mar walba habeen iyo maalin aan u taaganahay oo aan fakerayna aan rabno inaan wax ku kordhino horumarka dalkan khaasatan xagga waxbarashada waa tahay wasiir waxyaabo oo aada loo hadlaya marka waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda la gaaro ama ardayda Soomaalida ee gudaha wax ku barata badankood aada loogu xantaa jirta waxaa ka mid ah inay hal dhinac wax bartaan oo aan ula jeedo inta badan waxay jecel yihiin dhammaantood inay bartaan maamul waxyaabaha maamulka la xiriira qofka muwaadinka ee Soomaaliga ahna dabcan dalkana u fiican tahay inay shaqooyin kala duwan dadka ama cilmi kala duwan ay bartaan waxyaabahaas oo kale wasaaradda suuragal ma ka dhigtay ama qiimeyn ma ku samaysay ma la og yahay saas oo kale tayada waxbarasho ee jaamacadaha hadda dalka ka jira waa sax horto ani waxay la tahay dadkii Soomaaliyeed oo isxilqaamay oo ama dalada waxbarashada ha ahaadaan ama ma arkaysa organizationada iyo hay'adaha kale muassasooyinka kala duwan ha ahaadeen oo waxbarashada iyo waxyaabaha kaleento oo dalkan intii uu aad u dhibaateysnaa keenay waxay u baahan yihiin ammaan waxay ku bilaabeen wixii markaas
sahlana oo ma arkaysaa la heli karay taasina waa fikir aad u fiican ay ahayd kow in ma arkaysaa ardaydii horta intii ay baxaan iskuul tagaan ay soo sheekeystaan ayadoo xataa aan waxba la baraynin ay soo laabtaan faa'iido weyn ku jirto kow ayaga dhexdooda horta ma arkaysaa soo arkay haddii xataa wax kale aysan sameyn soo sheekaysto counseling isku soo sameeyay oo wax soo kala bartay labo waxay ka hakisay waxyaabo kale intoo khatar ay dibadda ka sameyn lahaayeen marka waxbarashada Soomaaliya hadda ku dhawaad 30 sano qaabkii ku bilaabatay markaad fiirisid waxay ku bilaabatay si tartiib waxyaabo yar yar oo la heli karay oo dadkii awoodeen aan u baahnayn maalgelin xoog leh aan u baahnayn aqoon xoog leh aan u baahnayn technology iyo lab iyo waxaas iyo meel sophisticated in la sameeyo marka shariic wal qaanuun marka waxay ku soo bilowdeen waxyaabo yar yar oo saas oo kala ah oo sahlan oo la heli karay marka laakiin markii dadkii rabitaankii waxbarashada iyo isbedelkii deganaanta xaggeeda loo socday siyaasadii ay xasishay waxa loo baahnaanayaa aragti kale oo taas ka duwan dabcan taasina ma arkaysaa maantadan la joogay inaan wax qaban karno oo markiiba aan joojin karno maya waxay u baahnaanaysaa waqti ayda nafsadeeda laakiin waa aniga waxay la tahay dariiq aan ku soconno oo haddaad sheegtid haddaad fiirisid sequencega waxaan sida ay kusoo bilowdeen meesha la soo maraayay meesha la socdo maanta sanad ka hor markaan meeshaan imaanayay maanta isbedel xoog lahaa ka jiro wasaaradda aan joogo wasaaradaha kale dalka ka jira ayagana saas oo kale waayo dadkii waxay la qabsadeen in ma arkaysaa ay fahmeen in Soomaaliya ma arkaysaa maanta ay u socoto dariiq wanaagsan marka haddii la yiraahdo waxaasi eventually meesha ayaga ka baxayo marka ugu dambaysa tartiib laakiin annagana waan wadnaa dariiqii iyo qaabkii aan waxaan aan u hay su'aal la xiriirta imtixaanka oo markii hore aan ka tagay wasaaradda goormee qorsheynaysaa ama rabtaa inay natiijada imtixaanka inay shaaciso waqti ma loo qabto weli natiijada waxaan filayaa way ku mashquulsan yihiin farsamayaqaanadii haddii ilaa yiraahdo muddo dhow waa la soo shaacinayaa bishan July intaysa dhammaan ka hor ayaa haddii ilaa yiraahdo la soo shaacinayaa laakiin ilaa iyo ma arkaysaa wixii laga dhameeyo baan hadda aan sugayna imtixaanka dul waa la keenay process wuxuu leeyahay kala duwan maraaxil kala duwan oo maraa imtixaanka markaad keento saxitaan kaliya ma waa inaad dib haddana aad ugu samaysaa decoding coding waa inaad ku samaysaa kadib waa in la saxaa aad soo celisaa haddana decoding ku samaysaa kadib haddana roll markii wixii la isla sii raadiyaa magacyadii la sii geliyaa marka processkiisa waxaa waaye waa process ma arkaysaa oo complicated oo adag laakiin haddii la yiraahdo hadda wuxuu jiraa xilligii sida lagu soo wargelinayo gabagabadii bisha July intaysa dhammaan ka hor waa tahay qaybihii dambe ku jirnaa wasiir dhawaan wasaaradda maaliyadda waxay bilowday barnaamij ama mashruuc yar oo dakhliga soo gala wasaaradaha oo dhan ee wasaaradda maaliyadda lagu wareejinayo dabcan wasaaradahaas ay ka mid ahayd wasaaradda waxbarashada laakiin waxa la isweydiinayo waxa dakhliga wasaaradda soo galay xagee ka imaanaya muxuu ahaa dakhligaas taas aad la isweydiinayo wasaaradda dakhliga soo galo oo ka yimaada xagga shahaadooyinka oo kale ka yimaada ma badna wasaaraddeena dakhliga soo galo si kasta ahaatee wuxuu ka yimaadaa registrationka ama diiwaangelinta jaamacaadka iyo macaahidda kalento oo ma arkaysa la xiriira marka dakhliga waxyaabahaas oo kale ka imaan jiray ayaa jira oo wasaaradda soo gali jiray marka oo wasaaradda ma arkaysa lagu qaban jiray waagii hore laakiin aan ku wareejinay hadda wasaaradda maaliyadda way marka ugu dambeysay wasiir waxbarashada Soomaaliya saasheeka duruufahaas aad ka soo sheekaysaa qoyraacsan qaar badan oo kamid ah kusoo gudbay waxbarashada dalkan xagee bay wasaaraddu mustaqbalka dhow inay haysato Soomaaliya waxbarasho nooceeda laga rabo annaga waxaan aaminsanahay in hadda aan guulo waaweyn gaarnay oo dalkan waxbarashadiisana aan rabno inaan ku hanano tayadana aan ku hagaajino dadkana aan kalsooni gelino shahaadadeennii maanta waxay noqotay shahaado muctarif ah oo dunida intii aan meesha joogay aniga xiriir waxaan la sameeyay wadamo aad u badan 22 ayaan ma arkaysaa gaarnay oo kuwa aan xiriirka
la lahayn waagii hore waxbarashada ah oo aan ka dhaadhicin in shahaadadeena maanta lagu kalsoonaa kara ay qaataan ardaydeena ay ma arkaysaa siiyaan fursad oo haddii xataa shaki uu jiro ay ardayda shahaadada haysata ay marsiiyaan maraaxiishooda ay ka qaadaan ayaga imtixaan dadaalkaas oo in aan sumcadda waxbarashadeena kor usoo qaadno wuu jira waxaa kaloo aan aaminsanahay in isbeddel weyn uu ku yimid waxbarashada heerarkeeda kala duwan oo dhan khaasatan kan ma arkaysa isbeddelka keenayo isbeddelka bulshood keenayo oo muddo dheer qaadanayo waxa waaye kii aan ku guulaysanoo ah inaan bugaagtii dalka wax lagu bari lahaa dalkoo idil aan qornay oo aan manhajka midaynay kaasi anigu waxay la tahay guul ka weyn intii aan meesha joognay ma jirto kaasna waan sameynay waxaa ayadana muhiim ah in la xuso in aan gunta u dhignay aan sii hagaajinay wasaarad shaqaynayso oo tayo leh oo dad ma arkaysa xirfad leh ay joogaan oo khadamaadkeeda bixinayso oo aan qaab dhismeedkeedii dhamaynay oo maanta wasaaradda waxbarashada ciddii rabto ka rabto khidmad ay tegayso ay og tahay meesha ay wax ka soo qaadanayso wixiina ay si xaqa qofku u leeyahay haddii sharciga taa usoo helayo oo aan joojinay wixii ma arkaysaa dhinaca laga soo galayay ama wasiir uu wax soo dhamaynayay ama agaasimo guud wax soo dhamaynaya waxaas aan rabnay inaan meesha ka saarno oo aan ka dhigno wasaarad ma arkaysaa maamulaysa waxbarashadii dalka si cadaalad oo fiican oo xirfad leh ku maamulayso waxaan aaminsanahay in haddii saan aan kusii soconno dadkuna ay fahmaan waxaan ay na taageeraan in aan keeni doono haddii ilaah yidhaahdo waxbarasho tayo leh oo caruurteennana manhajkan cusub uu u keenayo in maskaxdooda isbeddel xoog leh uu ku keeno dadka dalka ku nooloo idil meel kastay ku noolaadana ay noqonaysa dad isku soo dhawaada aragtidooda iyo qulubtooda oo dad isku damqanaya ay noqonayaan waxaan qorsheynaynaa in aan keeni doono haddii ilaah yidhaahdo waxbarashada heerarkeeda saddexaad in ay noqon doonto iyadana mid tayo leh waxaan aaminsanahay dalkan dadkiisa dhalinyarada soomaaliyeed in maalmaha ka mid ah ay noqon doonaan kuwa ma arkaysaa adduunka hogaamiye uga horeeya meel kasto lagu arki doono qof soomaali ah oo ma arkaysaa dalkan uu soo saaray soomaaliyana ay noqon doonto meel ma arkaysaa dadku ay yimaadaan oo ay usoo shaqo tagaan oo ay usoo waxbarasho doontaan oo annagana aan noqono dadka soo dhaweeyo oo caawiyo dadka kale ya heerkaas waqtigaas inaan gaarayno annaga shaki ma iga jiro niyad waa igu qoran tahay inaan nool nahay inaan noolayn waa arrin kale laakiin soomaalida in ma arkaysaa ay adduunka xubin firfircoon ka noqonayso oo hoggaankeeda aan ku yeelanayno iyo maamulka dunida iyo go-aamadeeda aan wax ku yeelanayno shaki ma iga jiro aniga inay imaanaysa haddii ilaa yidhahdo laakiin waxay ku xiran tahay qaabkii annaga aan u dadaalno iyo sidii ilaahay noogu garab galo taasina waan aaminsanahay qalbigana way iga taalla waana ku ducaysanaynaa in arrintaas ay dhacdo haddii ilaa yidhahdo aad baad umahadsan tahay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan daahir cusmaan oo wasaaradda waxbarashada waraysi nagu siinayay barnaamijka kulanka toddobaadkana marti noogu ahaa toddobaadkan ayuu ahaa aad baad umahadsan tahay wasiir waa kaaga mahad celinayna waqtigan barnaamijkeenii kulanka toddobaadkii aad kala socoteen telefishinka qaranka iyo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya toddobaadkan daawadayaal dhegeystayaal waa nageynta